Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaalaha dhammaan soo dhawaada. Wax yaraan sugaa haddii uu qof soo galayo si haddii kalena casharka u sii bilaabo. Sababta waxa ogahay dadkii gadaalka imaado dhan inaad cajalada ku noqon kartaan mar kale aad fiirsan kartaan. Midda koowaad horta aad baa idinkugu mahadinaya, aad baa u mahadsantihiin. Sharafta maaragtay ku dhageysatiin casharada. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryayaa in uu naga dhiga maaragtay dadkii adduunyo aakhiraba oo wax wanaag isu sheego oo ku anfacana wixii ay bartaan. Saciida ku jiro wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma sha Allah waa soo badateen oo subax wanaagsan mid maanta casharkeen wuxuu ku saabsanaa waxaa filayaa dadka hadda ku jiro ama dadka hore yani u aqoonin casharka shalay waxaa ka hadlayay mindsetka. Programkeenu dhan horta wuxuu ku saabsan yahay waxa la dhaho 21 beri oo mindset maskaxda sidii loo programmeyn lahaa, maskaxda sidii looga bixin lahaa waxyaalaha negative-ka oo loo gelin lahaa wixii wanaagsan si waxbarashada noogu fududaato. Sababtoo ah anagoo dhan maanta waxa u wada badanay dad badan waxa arkaysaa noloshii u arko nolol ciriiri ah, u arko inay yani wax walba ay adag tahay, wax walba inay darbi tahay, inaysan waxba sameyn karin. waxyaalahaasna waxa kalifay waa maskaxda oo buuxdo, maskaxda oo ka buuxdo waxyaalo qaldan, waxyaalo aan loogu talagelin, waxyaalo yani maskaxda ay qaadi karin. waxyaalaha maskaxda u wanaagsan waa mindsetka oo aan ku dhahay 21 beri. shalay casharkeena wuxuu ahaa wixii xumaa oo maskaxda buuxinaya, laakiin maanta good news waxaan ka hadli doonaa wixii u wanaagsanaa maskaxda oo casharkeeda koowaad ah. wixii maskaxdeena u wanaagsanaa, wixii maskaxda korin lahaa haddii aad samaysidna subax kasta markaa soo kacdid oo ilaahay naftaas uu ku geliya oo sariirta ka soo kacdid aad subax kasta ku dhawaaqdidna ereyadaas aad tiraahdidna in ilaahay maskaxda subxaanahu wa ta'ala uu ku furfuraayo, waxbarashadaada ay ku fududaanayso. dad badanaa sameeyeen, dada islaam aan ahayna sameeyeen, anagooba islaam maxaa u maleysaa. dadkaasna markay sameeyeen waxay ogaadeen waxyaalo badan inay noloshooda ka bedeshay, wax badan yani maskaxdii inay noqotay maskax u soo jeedo waxbarashada, in aysan caajis aysan yeelanin. marka intaana taas oo ayaga qaabkoodii aan usii gudagelin, gratitude-ka muxuu yahay, maxay tahay yani inaad gratitude-ka meaningkiis waxa waaye in ilaahay aa ugu mahadisid subxaanahu wa ta'ala nolosha uu ku siiyey. subaxii oo kale markaa soo kacdid inaad dib isu fiirisid, aad tiraahdid ilaahay subxaanahu wa ta'ala naftaan uu siiyey, wuxuu i siiyey yani inaan nabad kusoo kaco, wuxuu i siiyey inaan musqusha geli karo oo yani aan kaadida kasoo bixin karo, wuxuu i siiyey awood inaan ku hadli karo, in maskax aan ku fikiro, in caruurteyda ama familkeyga ama walaalahay ama asxaabteyda aan kasoo akaco. taas marka laba mida uga hadli doona. midda diinteena ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanku noogu sheegay, axaadiistu noogu sheegay, ducooyinkay ku jiraan. midna kuwa scientiska ee hadda mar dhow ay ogaadeen, laakiin anaga diinteena hore noogu sheegtay. wax walbana introductionkeyga hore waa ku sheegay wixii psychology ay ku dhaqmaan oo maanta iyo mindsetka wuxuu ka imaada xagga islaamka, diintay kasoo baxsadeen. laakiin ayaga xaggoodii markay kasoo baxsadeen ilan diin ma lahan, sidaasay ku isticmaalaan. marka diinteena maxay ka leedahay ma soo wada koobi kari. 3 aayadooda arkay oo aan kasoo saaray suurata Ibrahim. ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku sheegayo, uu la hadlayo nabi Ibrahim. mid aayada kamid aayada 7 tan 5 6 7 aayada 7 ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay a'uudu billahi minash shaitaanir rajiim wa in ta'adana rabbuka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adaabi la shadiid. wixii nimcada ilaahay uu ku siiyay haddii aad ku shukrisid ilaahay wuu kuu badiyaa, haddii aadan ku shukrinna oo aad ku caasisid waxaa noqonaysaa waxna inaad adduunka gaarin, markasta inaad meeshii soo fadhidid. sababtoo ah nolosha nabadeeda waxaa ku helaysaa wixii agtaada yaala inaad arki kartid. hadda caagan hadduu agteeda yaalo oo caagan uusi ii muuqanin oo kan aan usii ordaayo oo caagan aan arkin, kan ma gaarayay. marka gratitude-ka waxyaalo badan u fiican yahay, healthiga u fiican yahay caafimaadkaada, wuxuu u fiican yahay waxbarashadaada inay ku korto, wuxuu u fiican yahay maskaxdaada inay u noqoto booliiska ka ilaalin lahaa traffiga, inay markasta ku ilaaliso. haddii aad bilaawdidna every subax kastana aad tiraahdid waxaa hubaa in ay maaragtay nafsadaadana ay baranayso. aniga waa dhihi jiray nafsadeeda haddaa yani tusaale idinka soo qaado, ilaahay waa ku xamdin jiray marka hore, yani waa akhrin jiray ducooyinka, laakiin waxyaalaha iga maqnaa, waxyaalaha waxa iga maqnaa ma arki jirin waxaa haysto.
laakiin markaan ku dhaqmay oo nafsadeeda aan geliyay alxamdulillah waa iska arkay waana arkay dad badan oo isticmaalaan subax markaa soo kacdid oo kale haddii aad tiraahdid guriga aad kaga bilowday nafsadaada oo wax kale aad sariirta intaadan kasoo kicin ducadana waa aragtay oo adkaaru sabaax waxay ku saabsantay inaad dhehaysid alxamdulilah ladii ilaahay ku mahadinaysid markaa soo kacdid waa dhehaysid ilaahay waa kugu shukriya nimcada ay siisay oo inaad sii badisid oo aa usii aragtid wax walbo aad hadid xitaa ilaahay subxaana watacaala hadda right now aa idinla hadlay ilaahay wuxuu igu manaystay nal inuu ii leeyahay guriga ilaahay wuxuu igu manaystay in heat uu guriga ii leeyahay oo qabow uusa qabanin laga maanta fiiri dad badanaan haysan nimcadaas dadaan haysanin nolosha dadaan haysanin aragtida dadaan neeftooda ku neefsanaya mashiin ugu jiro oo isbitaalada ku jiro dad aana kiliyahooda u shaqeynin maanta kiliyihiina uu mashiin ugu shaqeynayo oo musqush aan geli karin oo tuub ugu xiran yahay waxaasoo dhan marka haddii aad fiirisid ilaahay wuxuu kuu fududaynaa waxyaalihii kale oo aad haysan waa gaari kartaa maskaxdaadina waxay noqonaysaa maskax wax baran karto maskax waxay noqonaysaa u furmato wixii wanaagsan oo wax walba qabsan karto nabadda maskaxda xaggee nabadda ka imaadaa maskaxdaada haddii peacefulkeeda ugu fiican waxay ka mid tahay haddii aad ku fikirtid maantay quraacda ama markaa cunay ama biyaha markaan soo kacay aan cabay cidna ima qabsan cidna uma dhimin si nabadaan ku cabay biyahaas halaas keliya maxaa la dhahaa nabadda oo maskaxdaada aad ka raadinaysa ma aha inaad tiraahdid nabad ma haysti maxaa la dhahaa dhibaata ay haysato ama aad ka fikirtid waxyaalo aad haysato dadka hadda maanta waxay u badan yihiin in afkooda isku dilaan dadka qaar ama dagaal ama xabad ama wax ku dhacso maaha kelmadda afkaaga aad kasoo bixisay aa kugu noqon karo inuu adig ku dilo waxayna ugu badanta uu kugu dilaya waxaa waay one in aad tiraahdid ama broke ama wax ma haysto ama lacag la-aan ay haysato allah ani waa jiranahay allah ani dhibaatadaa haystaa bal fiiri inta wax maalintii aan sheegano oo cabaad ah inta maalintii cabaadka aan sheegano iyo haddii aad u bedeshid aad tiraahdid wax kasta aad soo kacdid aad tiraahdid ilaahayna wuxuu isiiyey caafimaad ilaahay wuxuu isiiyey inaan nabad kusoo kaco aan neefsan karo allah wuxuu isiiyey in ilmahayga aan kasoo akaco in familkayga aan kasoo akaco in aan nafsadeeda wax u qabsan karo in aragtideeda ay furan tahay in guri aan ku dhex jiro oo darbi eela oo yacni oosan maanta uu kasoo ama dadka africa ku noola kale qorax uusa ii qabanin ama in guri aan ku noolahay uusa ruufkiisa uu ii dadaya qabow ay taabanin meeqa qofaa dadka banaanka jiifa ah waa dad badan marka maanta casharkeena intaas kusoo koobaya gratitude-ka horoon noogu sii socon doona hadduu ilaahay idmo aada u mahadsantihiin ma raba inaa kusii dheeraado جزاكم الله خير عنقتي يرتا igu soo kacday waa mahadsantihiin saasa dhaqso u soo galay marka waxaan rabaa inaan si dhaqso uga baxo wax kala raba hadhowda inaan soo galo video soo duubo oo aan ka hadlaayo baarki topic yar inaan ka soo hadlo insha Allah khayr idin wada rajeena dhamaan waana mahadsantihiin kana raali noqdo ma ku sii jiri karo waa inaan ka baxo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh